dugsiga Wyoming Valley West ee ku yaala gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka ayaa uga digay waalidiinta in lagala wareegi doono carruurtooda haddii ay awoodi waayaan inay bixiyaan deymaha lagu leeyahay oo ka dhashay qarashaad cunto lagu siiyay carruurtooda. warqad loo diray kun waalid oo aan bixin qarashaadka cuntada carruurtooda ayaa ifinaysa digniin ah in carruurta lagala wareegi doono haddii aysan isbeddel samayn. qarashaadka lagu leeyahay qoysaska ayaa la tilmaamay inay gaarayaan $20,000 iyadoo qoyska ugu badan lagu dallacay $450 oo keliya. waxaa lagu diri karaa maxkamad sabab la xiriirta inaad ka gaabisay xaqa carruurtaada ee ah inay helaan cunto ayaa lagu yiri warqadda. waxay intaa la raaciyay natiijada waxay noqon kartaa in laga qaado cunugaaga isla markaana la geeyo xarun lagu daryeelo. go'aanka dugsiga Wyoming Valley West ee ku yaala Mareykanka ayaa dhaliyay dood badan iyadoo waalidiinta ay ka keeneen cabasho xooggan. dadka qaar ayaa u arka warqadda mid hanjabaad ah oo ujeedkeedu yahay keliya in dugsiga uu helo lacagtiisa, halka Carlos Coslet oo ah qareenka dugsiga uu sheegay inaysan warqadda ka dhignayn hanjabaad, isaga oo yiri waa ku ceeb waalidiinta qaar inaysan doonayn bixinta qarashaadka lagu quudinayo carruurtooda.